20 sanadood ka hor waxa uu galay xaalad xasuuq ballaaran oo caalamkuna ka naxay xagjiriinta Hutuuska ayaa xasuuqay 800,000 oo qof kuwaasi oo badnaa Tutsiga iyo Hutu qunyar socda. Haddaba dalka dib ayaa loo dhisay iminkana waxaaba lagu tilmaamay horseedka horumarka Rwanda hadda waa bulsho la xakameeyo xagga saxaafadda. BBC ayaa booqatay dalkaasi oo baadhay doorka ay propagandadu ku lahayd xasuuqii halkaas ka dhacay. Suhayba Badqas ayaa ka waramaysa. Anne-Marie afar caruur ah ayay haysatay 1994 curadkeeda Innocent waxa uu jiray 11 sano waxa uu ahaa kii ay ku ildoogsanaysay waxa uu iga ballan qaaday inuu i xanaaneeyo nolosheedana bedelayo qof aad wanaagsan ayuu ahaa nin ay jaar ahaayeen oo ay taqiinay aamintana ayaa bishii Abriil habeen soo weeraray gurigeeda. Salantiin baangada ayuu la soo baxay waxa uuna qoorta ka jaray 2 caruur oo aan dhalay anigu se waxa ii suura gashay inaan baxsado. Waa ay badbaaday balse wax walba ayay lumisay. Muddo 100 cisho ah ayaa lagu dilay in ka badan 800,000 oo Tutsi ah iyo Hutuuga oo qunyar socod ahaa. Caasimadda Kigali Tom Dahiro oo ahaa wariye waxa uu ka shaqayn jiray xafiiska qaran ee macluumaadka hoosna taga madaxweyne Paul Kagame waxa uu sheegayaa in xasuuqa loo adeegsaday in lagu sii fidiyo propaganda siyaasadeed oo dawladda ka dambeysay kaasi oo loo adeegsaday TV-ga Libredamile Collins ee gaarka loo lahaa waxay ugu yeedheen baranbarooyin masas waxay doonayaan ayay ugu yeedheen Tutsiga waxay u bixiyeen cadowga Rwanda ayay u bixiyeen Actually, Tutsi as an enemy and the hate of Rwanda. Anne-Marie aad bay uga xumaatay inay aragto ninkii caruurteeda dilay oo dib ugu soo laabtay tuulada. Waxa ay rabtay in ay disho balse tallaabooyinka dib u heshiisiineed ayay ku go'aansatay in ay cafiso kadib markii uu la taliyay nin baadari ah. cafis ayaan weydiisanayaa dhammaan intii badbaaday waxay ka badbaadeen falalkayga maxaa yeelay dilaa aad u xun ayaan ahaa weli waxay ka nooshahay wixii aan falay alla ayaa badbaadiyey Celestine 10 sano oo xabsi ah ayuu ku mutaystay falkaasi weli waxa uu isku dayayaa in uu raaligelin bixiyo sida dawladda Rwanda ay sheegayso Anne-Marie iyo Celestine waxay tusaale u yihiin mustaqbalka qof walba oo Rwanda jooga haddaad ku soo hadal qaado qoomiyad ma jeclaysanayaan waana arrin ay dawladdu doonayso in ay dhiirigeliso dalka horumar wanaagsan ayuu sameeyay tan iyo xasuuqii 25 sano ka hor halka ka dhacay walow dhaawacyadu bogsoodeen murugadu weli ma dhammaan